yiri qofkii daryeela oo u naxariista agoonta inay jannada u sameeyeen waa wax muhiim ah waad garan kartaan qof agoon ah oo aabihiisa leen hadaayay uu calal xumaaday wasiirka isaga tarzan xaqiiqdii anna gudaha ayaan ku soo calal xumaaday gabar yar oo aan salaamayay markii aan salaamay inay tiri aabe waa wax la taaban karo waxaa kaloo xadiiskaas inoo sheegaya in uu noo sheego walaalkeen ninkii nabigu yimid ee qalbiga adeega dareemay oo raxmadda ay ka suushay oo wax kasoo ka zuulay inuu nabiga weydiiyey maxaa daawo noo ah waa run waaye daawada qalbi adeega dhammaanteen inta badanna waan qabnaa naxariista kaliya waxaan garanaa marka aan nimaano meesha laakiin marka aan ka fognahay ma dareeno saa darteed waxaan rabaa oo halkaan rabaa inaan ka faro shacbiga Soomaaliyeed oo halkaan iga daawanaya gudaha iyo dibadda inay u soo gargaaraan walaalahood yatiimka oo agoonta ah ee aabayaashooda iyagoo difaacayo annagana difaacayo qarankana difaacayo loo laayay oo maanta halkaan ku sugan inay wax u soo dhiibaan waxna u gartaan hadiyadna u soo diraan iyagoo u soo marsiinaya xarunta agoonta taliska ciidanka booliiska waa mahadsantihiin